saacada kadib markii ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan halkan ay shalay ku fashiliyeen deegaanka ceelasha biyaha weeraro kooxaha argixisada ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed maanta waxa soo gaaray halkan saraakiisha ku sarreeyay ciidanka xasilinta caasimadda oo uu markaa ugu horeeyo taliyaha guutada Gungaar gaashaanle dhexe Aadan Jeelle ayaa halkan kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka ee xasilinta caasimadda oo xil saaran kuwa oo shalay ka hortagay weerarkii argixisadu ku doonaysay inay ku dhibaateeyaan shacabka. Taliyaha ayaa u ballan qaaday ciidamadu in ay heli doonaan abaalmarino uga imaanaya qaranka Soomaaliyeed iyo madaxdooda isla markaana lagu dhiirigelin doono hawsha ay hayaan. Waxa uu sheegay inay u niyeystaan inay jihaad ku jiraan cadawguna ay qasaari doonaan. Aadan Jeelle ayaa sheegay in goobaha cadawga ay ka soo abaabulayaan weerarada loogu tagi doono maalmaha soo socda mar dambana aanay dhici doonin in weerar laga soo abaabulay banaanka dadkeena lagu dhibaateeyo. waxaan rabnaa waa ognahay waajibaadka qaranka iyo waajibaadka lagu jiro iyo dhibkan lagu jiro iyo yani waqtigan la bixinayo waa adag yahay waan ognahay laakiin maalin ayaad ogaa doontaa maanta rafaadka aad la kulanto iyo daalka aad la kulanto maalin ayaad ogaa doontaa natiijadiisa maalintii wadankan uu nabad noqdo raas casar iyo raas kambooni la soo gudbo magac argaxisan laga iloobo maalintaas ayaad waxaad ogaanaysaa shalay waxaad samaynaysaa inay sax ahaayeen inaad daasho inay sax ahayd inaad rafaad inay sax ahayd inaad dhaawacanto inay sax ahayd inaad dhimato inay sax ahayd maalintaas ayaad ogaanaysaan. waxaan rabnaa dhallinyaroy waddankan dhallinyara u soo halgantay waad ogtihiin niman dhallinyaro ah oo tacliinta maanta la haysta aan haysan dhaqaalaha maanta la haysta aan haysan tiknolojiyada maanta la haysta aan haysan ayaa u soo halgamay xornimay soo gaarsiiyeen. intiina badan waad garanaysaan dhallinyaradii SYL maanta tiknolojiyada la haysto iyo cilmiga la haysto iyo imkaaniyaadka la heli kara ma heli karin haddana ayagoo wadamo ka awood badan iyo joogaan ayay soo halgameen waddankan xorriyaday gaarsiiyeen. waxaan laga rabaa inaan intaas dhammaystirno. maanta Soomaali waxaa haysta argaxiso waxaad ogeedeen ee shalay halkan lagu fashiliyey ilaahan ku dhaariyey haddii ummadda Soomaaliyeed dhex geli lahaa ama caasimadda dhex geli lahaa meeqa ayaa ku halaagsami lahayd meeqa hanti ayaa ku burburi lahayd. waxaan laga rabaa ummadda Soomaaliyeed dadka u dhaarta waa annaga inaan dhaarna ka dhabayno inaan dhiiggeena aan u shubno inaan naftayna aan u hubayno. maanta dhiigga kaa baxa maalinta qiyaamo ayaa miisaanka lagu saaraya haddaad ku shahiidana shahiid ayaa tahay. dhididka kaa dhibcaayo ilaahay ayaa ajirkaa siinaya. waxaan rabnaa in ummaddaas loo shaqeeyo abaalmarintiina qaranka Soomaaliyeed bixi doona. ummadda Soomaaliyeed waxaad ka badbaadiseen abaalmarinteeda adduunyana waad ku helaysaan aakhirana waad ku helaysaan. adduunyada insha Allah qaranka Soomaaliyeed ay ku sii doono aakhirana ilaahay ay ku sii doono. aad u mahadsantiin. waxaan idin rajaynayaa guul iyo inaad ummadda Soomaaliyeed cadawga dul qaataan. waxaan kaloo intaa ku sii darayaa hadda meeshaan joogna laga hor istaagay insha Allah waxaan biriyaha soo socda anugu tigi doonaa meesha ay ka soo maleegeen qaraxyada ogeedeen aad halkan ku arkaysaan meesha ay ka soo maleegeen ugu tagaynaa maalin dambe inta soo maleegaan halkan ma kiirin doonaan idamka Allah. guul aan idin rajaynayaa guulaysta. maalmihii la soo dhaafay howlgallo joogto ah ayaa ka socday deegaanka ceelasha biyaha iyo deegaanada kale ee ku teedsan kuwa oo lagu sifaynayo argagixisada oo iyagu caadaysay in ay markaasi dhibaato u geystaan bulshada.